meel kasta joogtiin. Barnaamijkan waa qaybtii u dambeysay aan kaga hadlayno dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka iyo sababtu uu yahay dagaal weyn saddexaad ee dunida ama ugu eg yahay. barnaamijka qaybihii hore waxaa idinkugu soo sheegnay haddaas yaro kooban aan idinkugu soo gudbiyo in dagaalkan uu soo bilaabmay 2008 kadib markii ay wadamada NATO ay dhaheen Ukraine iyo Georgia waxa ay kusoo biiri doonaan ururka NATO. Ruushkan uu ka xanaaqay isla markaana Georgia oo markaas doonaysay inay ku biirto diyaarna u ahayd uu weerar ku ekeeyay. Georgia markii weerar lagu ekeeyay Ukraine wax daneen ama markaas uu Ruushka weerar ka qabay inaysan jirin sababtoo ah dawladda markaas haysatay iyo shacabku waxay taageersanayeen wadanka Ruushka iyo xukuumaddiisa iyo dadkiisa ayay taageersanayeen. laakiin 2004 ayay wax walba isbedeleen kadib markii Ukraine uu ka dhacay kacdoon oo laga soo horjeeday dawladdii markaas Ruushka taageersaneed. kacdoonkaas Ruushka wuxuu ku eedeeyay inay soo abaabuleen reer galbeedka. Ruushka markiiba waxa uu go'aansaday in uu ka jarto jasiiradda Crimea dalka Ukraine. Crimea asal ahaan waxa sheegan jiray sida idinku soo sheegay barnaamijka Ruushka waxa uu ka qaatay dawladdii Ismaaliyiinta. halkaas markii ay marayso Ruushka waxa uu bilaabay inuu jamhadihii ka dagaalamayay Donbas iyo Luhansk ee dalka Ukraine in uu aad u hubeeyo ciidamo uu asaga leeyahay uu ku dhex daro meesha. jamhadahaasi waxa ay rabeen in ay wadan gooni ah noqdaan ama ay ku biiraan Ruushka. sheekadii badan ayaa ku dhex jirtay barnaamijyadii hore. marka hadda waxa marayna 2022 bishii February Ruushka waxa uu dagaal ku ekeeyay dalkaasi Ukraine cirif ka cirif. dagaalka markuu uu bilaabmayna waxa uu madaxweyne Putin go'aan ku gaaray in uu dhammaan ciidankiisa nuclear-ka qaabilsan ee high alert ay galaan isla markaana wadamada NATO iyo xulafada galbeedka waxa uu diray haddii hal diyaarad idinka ay leedihiin ay gudaha u soo gasho ama ciidan ay leedihiin Ukraine waa idin hulcinaya ayuu dhahay. adduunyada waa hulcinaya ayuu dhahay. marka wadamada reer galbeedka farxay ka qaadeen wax saanad military ama dhiig joojin ay la soo gaareen dalkaasi Ukraine ma aysan jirin ilaa iyo step by step ay u gaarsiiyeen in ay u hubeeyaan. markii koowaad waxa Redland taangiyo ay leeyihiin reer galbeedka ma geli karaan. waa madaxweynaha Biden hadalkaas ayuu yiri haddii aad fiirsatid videoga yariiska ah. Although we will not fight the Third World War in Ukraine. Putin kadib muxuu ahaa madaxweynaha Ruushka laba wiil dagaalkii markuu u socday Ukraine iyo Ruushka waxa isku afkarteen waxa lagu qabtay dalkaasi Turkiga heshiisyo la soo diyaariyay oo markaasi aan public noqonin laakiin in la saxiixay bas ay u dhineed ayaa Ruushka waxa uu ku Ukraine uu ku qanciyay inay wadan neutral ahaadaan aysan isla markaana NATO ay isku biirin iyo ay ku biirin laakiinse wadan iskiis markino sovereign oo ah laakiinse neutral ah ayuu ka soo saxiixday. laakiinse wax walba waxay isbedeleen markii uu ninka la yiraahdo Boris Johnson uu ka degay dalkaasi Ukraine booqasho aan la filaynin. waxa uu ku amray madaxweynaha dalkaasi Zelensky inuusan aqbalin wax waan la yiraahdo dhammaan wadamada reer galbeedka ahna ay garab taagan yihiin dalkaasi Ukraine. isla markaa waxa la bilaabay Ukraine in lagu qalabeeyo hubka fudfudud sida anti-tankiga, anti-aircraft-ga iyo qoryaha fudfudud iyo madaafiicda fudfudud. Ruushka waaga ku bariyay waxa uu watay 200,000 oo ciidan dal weyn oo 40 milyan ah oo Faransiiska la eg muusku qabsan karin. Ruushka ciidankiisa inta badan dib ayuu uga gurtay caasimadda Kiev iyo dhammaan magaalooyinka waaweyn oo soo galay waxa uu ku ekaaday xuduudaha xigo badda madow. Ruushka dagaal qaraar ayaa la galay isla markiina waxa laga saaray Kharkiv. Ruushka dib ayuu iskugu laabtay waxa uu sameeyay partial mobilization waxa uu galay wartime economy. dhammaan warshadihiisa hubka waxa ay shaqeynayaan 24/7 saacad kasta oo ay daarayeen. Ruushka waxa uu ogaaday dagaalkan inuusan waayahan u dhamaanaynin reer galbeedkana ay ka go'an tahay. laakiinse dagaalka hadda meesha uu marayo ayaa waxa ay tahay in Ukraine lagu qalabeeyay abkay taangi nooc walba Challenger 1, Abrams iyo Leopard. sidoo kale Ukraine hadda waxa uu soo socdo F-16 oo qaadi karto gantaar kasta oo nooc walba ah. waxay qaadi kartaa F-16 hubka nuclear-ka. Ukraine hadda waxa haysataa gantaalada noocyadooda kala duwan sida HIMARS-ka, ATACMS-ka iyo Shadow missiles-ka. Ruushka asagana waxa uu sameystay North Korea, Iran, China wadamo badan oo hubka soo saaro ayuu isku cadaadistay. Ruushkan aad ayuu soo hubinaya